Soomaalidu hore waxay ugu mahmaahi jirtay adduunyada ninkii joogow maxaa aragti ku laaban. Walaalaheena koonfureedna waxay odhan jireen cimrigaaga oo raaga geel dhalaayana waa ku tusa. yacni dee waxa weye markaad aragtid wax kaa yaabiya ama aad ku anfariirtid ama aad ku dheegagtid runtii madaxaasaa u ruuxaysa. imika waxaan uga socdaa jaraa'idka Kenya ka soo baxa baa waxay qorayeen sida laga soo xigtay ama sirdoonku ay soo ogaadeen dowladda Kenya inay u yeedhay niman dowladihii soo maray Soomaaliya xilal ka soo qabtay haatanna ku sugan magaalada Muqdisho. raggaasi waxaa ka mid ah madaxweynihii markaasi jiray la odhan jiray Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, iyo ninka kale dheer ee la yidhaahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ahaa wasiirka xidhiidhka caalamiga iyo iskaashiga iyo wax noocaasa. saddexdaa ninba Kenya ayaa u yeedhay waxaanay u sheegtay ku tiri waxaan rabnaa inaad ka qayb gashaan dacwadda badda oo muuqaal aragga fog ay dacwaddaasi ay ku dhici doonto ama aaladan casriga ah zoomka loo yaqaan. nimankaa odayaasha maanta godkooda biyaa ugu galay wuxuu dhaxan jalaade dheg baan jalaqlaysin. warin badan baa la lahaa war ummadda Soomaaliyeed hantidooda yaan si sahlan oo hunguri xumaa oo ducfinima yaan wax yar oo shilmaada oo kaa dhammaanaya yaan la siisan. war nimankaasi war baa ka soo yeedhay Kenya ceebalaha asturo. nimankaa dowladda Kenya ayaa tiri waa inay soo diyaar garoobaan. waxaa kaloo la sheegaya inay tiriba de zoomka kuma hadlayn karno inay kasoo muuqdaan maadaama ay ku sugan yihiin nimankaasi Soomaaliya amnigooda ayaa khatar gelaya. marka warkaasi waa warka ilaa maanta ilaa shalay dee meel walba saa u gilgilaya. bal waaya waxaan jeclahay marka aan idin maqashiyo ugaas Amare oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo isagu si kalsooni leh si geesinimo leh si hufan si daacadnimo bal nimankaasi iyo dowladda Kenya iyo bal hadda wixii dhex maray ayaan jeclahay in haddii Allaha awoodda leh ogolaado inaan bal aan isla yar maartay daawano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصوماليات ميل كستو دونيدا جوكتان يحيلي كستو جوكتان يحالات كستو كد جرتان با وانا نسو سلامية ما تفرحات فربضان بيئتاي وحنكون فرح سنهاي عدو جيني با انو مرخاتي فراي دولة دي كينيا ايا ما انت مرخاتيجي انو فرتع عاد مرخاتيجنا وحا وفي عن كو عدو واقو كفرو Soomaaliya wax badan bay ka hadlaysay faragelin lagu hayo waxay ka hadlaysay in jiro dad Soomaaliyeed oo dal kala u shaqeeya internal enemy ee sheegi jirtay. shicibka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasto joogaanba way ka hadlayeen wayna sheegayeen. maanta waxa cadaatay Kenya tiri waxaan haysanaa markhaatiyaal Soomaali ah oo badayada markhaati ka ah waana wada garanayna waa kuwii aan sheegi jirno markhaataan haysanaa bay tiri laakiin markhaatiyaashaasi waxa suuragala inay markhaatiga dib uga noqdaan oo ka baqaan dadkoodii Soomaaliyeed iyo wadankoodii Soomaaliyeed inay cabsi ka gasho oo markhaatiga sidii loogu talagalay aynay u sheegin baa suuragala. waa markhaati Soomaaliya marka Soomaali waa loo tashanayay laakiin meesha loogu tashado Ilaahay baa joogay oo ka badbaadiyay dadkii u tashanayay. wax badan baan sheegayno ka hadlaynin
wardaba dhilif Soomaaliyeed baa jiro dalka loo shaqeynay madaxweynaheenu uu sheegay gacan kale ay nagu jirto uu daba dhilif ummad kale ay nagu jirto dad kale oo aan Soomaali ahayn laakiin ay Soomaali u shaqeynayso oo dalkeena horumarkiisa iyo systemkeenu inuu shaqeeyo iyo dawladnimadeena iyo qarankeena iyo ciideena iyo calankeena ay dhibaysaa jira maanta soo baxeen maanta wixii lagu hadlayaa ma garanayo waxaan leeyahay war nimankii dambigaas kale way joogaan laakiin anigu personal dambiga waan kala qaadaya ninka Sheekh Shariif la yiraahdo aqoon darra u geysay dambigaas isaga aqoon darra u geyso biyo madow inuu ku qaatay hadii la yidina wax dhibaato kama imanayso marka isaga dambigiisu fiiri waayo aqoonta faraha badan la malahan amba aqal fara badan ma uusan ahayn biyo oo buu haysta ay iska qaadanayso Kenya qoladii sidii burburkii markii dalkan loo isku ka talinayeen sidii wax loo iibinayay buu soo gaaray marka wuxuu lahaa iibis isaguna inta wuxuu ka dayay dhaqaale ayuu uga jeeday laakiin consequence ay keenayso ma uusan garanin Ali Mahdi baa la mid ah ninkii sunta ku aasay dalka la mid ah boqolaal kala la mid ah kaasi dambigiisu ka yaryahay kii kabarka leek ninka kabarka leek ee Dubai jooga ee prime minister ka dambiilaha ugu weyn waa ninkaas iyo ninkii badda saxay ragay Kenya sheegaysana waa kuwaas haday kuwa kala soo baxaan iyaga sheegi doona iyaga ayaa sheegi doona marka kuleel ku gaaro ee leeyahay badii Soomaali baale iyaga ay noo cadeyn doona kuwii kale la shaqeynay adowgii kale ee la shaqeynay daba dhilifyadii la shaqeynay dhaqaalaha ka qaatay kullaba iyaga ayaa noo cadeyn doona laakiin inaga Ilaahay baa inoo iftiimiyay diinka baalka la diin bay yiraahdaan skoofurta dadku diin baalka diinka la qolof ma lahayn baa leeyahay laakiin qambaarka u sheego waa lagu tashanay markaasuu qambaaro meesha qambaarku waa shimbir dusha duuduusho ma geeda fadhida qambaarka u sheego diino waa lagu tashanay wuxuu halka lagu tashanay Ilaahay muuna joogay uu joogay qolof baa dusha laga saaray diinka lama cuni karo waa niga arkay marka halkii Soomaali lagu tashanay Ilaahayna uu joogay marka Ilaahay baa inoo kufar garay inaga kufar garay cid kasto cadowtinimo inala soo doonatay kufar baan helay Ilaahay baa inaga ilaaliyay Ilaahay baana maada iskale ta kale niman kale waan mudaharaadka sheegayaan maxay u jeedaan marka kale waa mudaharaadayna ma Soomaaliya dhamaata maxaa looga jeedaa idan mudaharaadkii hore waxay u jeedaan inay wax boobaan oo wax dhacaan oo wax burburiyaan oo dalkan chaos ka dhaco oo amar meesha aan dawladda ka jirin oo nin walba wuxuu doono sameeyo oo nin walba gurigu rabo galo oo nin walba daaro calaamadaystay galo sidaas doonayaan boobaan oo meesha boob si ay u bilaabaan waayo iyaga u sheeg karay social media u sheeg karaya markay mudaharaadayaan ee yimaadaan dajirka dahsoon waxa uu sheegayaan kama duwana waxa social media u sheegayaan dadka ay soo saarayaan maxay u sheegayaan markay ay yimaadaan dajirka dahsoon wixii hore ka duwan bay u sheegayaan xumaantii iyo caradii iyo wixii farmaajo aydiisi wax ka badan bay sheegayaan ma inta imika sheegaan in ka badan bay sheegayaan anigu aqli fiican la muuqato in mudaharaad la sameeyo iyadoo laga baaqsan karo oo social media laga wada hadli karo iyadoo Soomaali dhibanayso ee habeen dharaarba dhibanayso oo u dhibanayso xarunka fiday inay dibadda loo soo baxo amba la mudaharaado aqli fiican lama muuqato aniga waa laga baaqsan karaya mudaharaadka waa laga baaqsan karaya wax exceptional wax ka wanaagsan oo loo sheegayo wixii hore ay u sheegi jireen ma jiro haday meesha yimaadaan waa intaana inay idaacadaha uga sheegaan ayaa ku talin lahaa Soomaalida dad ba qaarkood baa naxay marka ay arkaan nin Soomaaliyeed oo filayeen oo ballaadna oo xoog badan ama wuxuu doonay ahaado oo marka uu hadlo ay ka naxayaan inaan naxdaan ma sababtoo ah qofka bili aadanka hadalkiisa lagu miisaama qofka miisaanku culayskiisa ma aqliga iyo aqoonta ku jirto qofka hadalkiisa laga gartaa hadalku waa miisaanka qofka bili aadanka hadalka ku hadlay ayaa miisaana qof weyn oo ballaaran oo haduu doono kabar leeg oo markuu hadlo ad ka naxaysan jiro wuxuu ku hadlayaa leedahay waxaan ilmo yar ba ka dhaxalay ayaad sooranaysaa jira waxa jira ilmo yar oo marka uu hadla leedahay mowduuc aqala ka dhaxalay marka waa nature waa bili aadanka Ilaahay saasuu sameeyay nimanka riyoonaya madaxtinimada doonayana qofku bili aadanka intuuna riyoon waa inuu seexdo waa inaad seexato si aad u riyooto
laakiin adoo soo jeeda haddaad riyoto waa cajiib waddankan madaxweyne farmaajo joogo qalbigii iyo laabtii soomaaliyeed degay marka inaad isku dhibaataysaan ama dad u jijiidataan madax baan ka noqonayaa Soomaaliya ma dhici karayso waddankan farmaajo intuu joogo ma hawaysan kartaa madaxtinimo waayo meel aad uga dhigantaa ma jirto 100 calaamadood buu leeyahay mid qurad u dhigantaan ma jirto marka inaad isdhibtaan oo laftiina dhibtaan ummadana dhibtaan maaha dalkani inta madaxweyne joogo farmaajo joogo wax shaqo oo ka qabanaysaan ma jirto aad baan idin salaamaya Soomaali meel kastoo dunida joogtaanba waan insax markaynu qodobkii hore intaa kaga soo gudubnay qodobka labaad baynu isagana haddii allaha wadani ogolaado aynu wax ka odhan doonaa doorashada Soomaaliya maadaama waqtigii loogu talagalay ay hadda dhaaftay waayo ciidan lagu hajiidaysa ama hortaagan in doorashadaas ay u dhacdo sida loogu talagalay runtii doorashada Soomaaliya laba nin baa hortaagan labadan nin waxa weeye nin waa wuxuu horjoogo u yahay maamul goboleedka Puntland nin horjoogo u yahay maamul goboleedka Jubbaland laba nin oo garanaysan iska macruuf labadan nin waa iska ayaan daro haddii ay iyagu maskaxdooda iyo aragtidooda iyo siyaasadooda ay xor yihiin oo ay ummadda Soomaaliyeedna u turayaan ama u deegnaxayaan wax way baahan laakiin nimankani waa niman u faruuriye xidhan u afduuban gacanta ay ku hayaan dowladda shisheeye oo garanaysa waa nimankii kookuyada ahaa iyo nimanka imaaraadka maadaama ay sidaa yihiin laba nin oo wax loo dabadiisa wax looga yeelinayo iska ayaa darooyinka Soomaalida ku dhacay baynu odhan karnaa nimankaas labadan nin baa hortaagan markii hore qorshoodu wuxuu ahaa in la isla soo dhaafo 8 February oo sidii loogu soo sheekay filmadii loogu soo sheekayay bay Soomaaliya gudaheeda ku jilayaan marka mar walba sida xisaabta isugu geynayeen mooye sida kale ayuu dhacis waana meel Ilaahay wax ka wado laakiin haddii ay ahaan lahayn dad maskaxdooda iyo aragtidooda u xoro dee hawshan bal iskuma wadaahan maanta dhan baa u dhici lahayd hawsha doorashada Soomaaliya laakiin waxay ku noqdeen caqabad bay ku noqdeen waxaanay kaga dhigtay beesha caalamka 10 jeer ka badan intii beesha caalamku hadda ay arrimaha wax ka tiri isu soo jiijiiday iyaga ujeedadoodu waxay ahayd inaan doorasho marna aanay dhicin arrin kale oo naxdin laba jirtay oo runtii waxa weeye anna meeshaydu hay dhisnaato horumar hay yeelato adduunyadu ha noqoto meel nabadgelyada ay ku soo hirtaan muqdishona ha noqoto meel gubata oo barida dhulka loogu dhifto runtii laba wax isqaban karaya maaha marka ilaahay baa mahadle filmkaasina waa kii qarxay oo muddo dheer laga soo shaqeynayay inay xamar ay mar labaad barida dhulka ku dhufato lagu kala qaxo kabtay ma aragtay ay ka dhacdo laakiin shacabka reer Muqdisho runtii inkastoo intii hore filimka ay ku wareereen inay fahmaan daawashadiisa alaakhirkii ilaahay waa soonsiiyey waanay fahmeen waxa loo hamiye dig lahaa inay tahay xamar in lagu kala qaxo waxaana waxa ka shaqeynayay labada maamul aan idin soo sheegay oo iyagu
malaabdee sida wararkan ku maqlay suuqii baa ka xidhmay hoteelo waaweyn oo qaaliyo magaalooyinka laga dhisay ganacsi badban fara badan wixiiba dee xagga wadaadada wixiiba xawar bay qabtay marka waxay ka fekereen waa sidaad ganacsigiinii iyo dadkiidii kusoo hiranayay aada u soo ceshataan dabadeedna baal xaasidkay ka baadheen ya baalka xaasidka ayay ka baadheen waxaana is tuseen inay horta bal mar labaad xamar barida dhulka ku dhufato kadibna ayagu sidaas ay ganacsigoodii iyo danahoodii siyaasadeed ay dib ugu soo noqdaan runtii taladaasi talo waxaa ahayd aada iyo aada u khariban haddaad adigu nabadgelyo iyo horumar haysato walaalkaa maxaad ugu diideysa maxaad dhibaato aada og tahay adiguba inaad ka bixi karin maxaad isaga aada ula doonaysa midda kale mudaharaadku ha ka dhaco muqdisho xaq weeye dastuurkaa qoraya bahaa adiguna markaad maqashay mudaharaadyo nabadiyo nolol lagu taageerayo ayaa daniyo waad sidaa wax ugu soo daadisay askariga wax meel walba oo tiri car hadla car isu soo baxa de xaggan iyada kismaayo iyada dhegtaa dhiigga lasu daraa lasmaba dhaqdhaqaajin karo marka dee ilaahay baa idin kashifay yacni xamar ha gubato caqli galan maaha